طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاق آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. walaalayaal waa deriskeenii shanaad ee barnaamijkeenii barashada cilmiga tajwiidka oo ah habka loo akhriyo qur-aanka kariimka ah ee ilaahay uu raalli ka yahay inooguna soo dejiyey nebigeenna maxamedana calayhi salaatu wassalaam jibriil uu ku baray. deriskan ka horreeyey waxaynu soo qaadanay oo aynu bilownay inaynu ka waranno casharada tajwiidka kuwii ugu muhiimsanaa mid ka mid ah oo ahaa xuruufta iyo halka ay ka soo baxaan. xuruufta qur-aanka kariimkii ka kooban yahay waxaa weeye 28 xaraf. 28ka xaraf goobaha ay ka soo baxaan oo makhaarij loo yaqaano ayaynu deriskeenii hore soo bilownay. waana waajib in qofku inta aanu axkaamta kale tajwiidka baran inuu barto xarafku halka uu ka soo baxayo. id waajibun calayhimu muxatamu qabla ashuruuci awala an yaclamuu makhaarij alxuruufi wasifaati liyalfiduu biafsaxi allugaati. horeynuu soo sheegnay. ibnuljazari raximahu llahu tacaala waa waajib buu yidhi inta aan la gelin shayga ugu horeeya ee la baranaya tajwiidka inta aan la gudagelin waxaa weeye in la barto xarafku halku ka soo baxo iyo kayfiyada iyo habka uu u soo baxayo. waxaa ka dhalanaya markaa in qofkii si wanaagsan ugu dhawaaqo xarafkii. waxaynu soo sheegnay deriskeenaa hore xuruuftu inay 28 yihiin, makhaarijna inay jirto, mawaadicna inay jirto. mawaadicda ayaa ugu marka hore lasoo hoos gala mawaadicdu oo culimada qaarna ay yidhaahdaan almakhaarij alcaama, makhaarijta iyo goobaha waaweyn ee caamka ee guud. culimana ay yidhaahdaan kalena ay yidhahdaan almakhaarij alkhaasa. culimana ay ka hore almakhaarij alcaama ay yidhahdaan almawaadic. almakhaarij alkhaasana ay yidhaahdaan goobaha ama qolalka. deriskii hore waxaynu ku cabirnay waa gurigu wuxuu noqonaya almakhaarij alcaama ama wuxuu noqonaya almawaadic. qolalka guriga ku dhex yaalla waxa ay noqonayaan almakhaarij alkhaasa ama makhaarij. iyo qolkii cidda gelaysa oo maalan marka qolka dee dad baa gala innaga tusaalahaan marka laga hadlayo xarafku halku ka soo baxayo dee xarafkii gelayeyna wuxuu noqonayaa wuxuu ka dhigan yahay bani aadamkii gelayay qolka oo kale. waxaynu soo sheegnay casharkeennaa hore in macnaha xuruufu tahaji alif ba ta tha iyo magacyada ay leedahay. waxaa muhiima walaalayaal markaa tirada aynu qaadanay iyo qolalka ay xuruuftu ka soo baxaan 17 baynu nidhi. culimadu runtii qaar 16 bay ka dhigaan, qaar 14 bay ka dhigaan, qaar 17 bay ka dhigeen, qaar way ka badiyeen.
qolada runtii soo koobtay 14 ama 16 ama 17 ka dhigtay qoladaasun baa ugu dhow qowlka ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala oo qaatayna waxa weeye makharij al-huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar inagoo furuuqda yar ee u dhaxaysa sheegi doona marka laga hadlayo xarafku halku ka soo baxayo xaraf walow 28 ka xaraf ka mid meel gaara oo rasmi ah oo kaga duwanaan karo leeyahay laakiin marka 17 lagu soo ururinayo ama 16 laga dhigayo ama 14 laga dhigayo waxay culimadu inaan waa taqriibi waa soo dhaweyn la soo dhaweynayo wayla hadii kale inaanu aad inoogu kala bixin ayaa laga yaabaa sidaas darteed baa al-allaamatu ibn abd al-razzaq fi tadhkirati al-qurra rahimahullahu ta'ala waxa uu ku sheegay والحصر تقريب وبالحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة إذ قال الجمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه ولا ليال وحان الله مركا إنه إسلفهاني أرنكا مخارجتنا بلا بينا المخارج العامة أما المواضع مركا هوري مواضع دا إيا مخرجة واوين جود الهوسكليو إناينو شاقنا وشن الجوف الحلق اللسان الشفتان إيا الخيشوم شنطة أيا وحا أي نقونيان مواضع دي قوبها واوين قولولكو أي هوسكليان قولولكا أي حروف إنه جلسة مدوح على الجوف وين شرحي الحلق وين شرحي اللسان وين شرحي الشفتان وين شرحي الخيشوم وين شرحي وحينوجوه الرئيسين دونا الجوف الجوف وبنان وميل بنان الخلاء ميل بنان وي جوف الحلق والفم أيا مركا لغا هذه تجويد كون قنيا انت بنان دونتا مركا سداتا انت بنان هودو مرتو بيهو مريان عنتدو مريان هنغوريغا يا افكا انت بنان أيا لونيا يعني بنان كا runtii u dhaxeeya afka iyo hunguriga xuruuf dhex marta ayaa la oranaya waa xuruuftii jawfka ama meesha banaan dhex maraysay xuruuftaasi goobta marta waa 3 xaraf oo loo yaqaano marka cilmiga tajwiidka lagu dhex jiro حروف المد حروف تلتشيده وحروف كلا بحيسة أو لتشيده حروف تاسي حروف المد كالله يقانا وحا أيهين الألف والياء والواو ألف واو ياء سدح ذاوي سدح ذا حرف أو شروط له mid wal oo kamidi waa inuu reebma mid walbana xarafka markaa ku haboon waa inuu ka horeeya aliftu waa in reebanaata alif markay meesha timaado xarafka ku habooni waxa weeye fatxa inuu ka horeeyo kordhow ya waa in reebanaata waa inuu ka horeeya xaraf kasraysan واو وائن الربطة وحكه الرينية حرف جدن تصالح قال يقول قيل قال مركان لاحظوا ألف كوربي فتحة كهرية هدو ألف كوربناضو مثلا أو فتحة كأنو كهرين ما حروف المد لما أرني يادو هدي ربناتو oo kasra aanu ka horeyn xarf mid lama oranayo waawdu hadii ay reebanto oonu damma ka horeyn
lama odhanayo xarfulmad. sidaas darteed xuruufta halkaa dhuunta bannaankeeda iyo carabka intiisaa bannaan waa intaa waxay noo maraan hawadu marayso, cuntadu marayso, biyuhu marayaan. xuruufta ka soo baxdaa waa saddexda xaraf ee shuruuddoodu tahay saddex xaraf la xuruufulmad oo shuruuddoodu ay tahay inay iyagu reebmaan saddexduba mid walbana xarafka ku habbooni uu ka horeeyo. tusaalihiina waynagaa sheegnay. qaala imaka laa qaa waa alif reeban oo fatxa ka horeeyo. qiila ya reeban oo kasra ka horeeyo. yaquulu waa wow reeban oo uu ka horeeyo damma. sidaas darteed ibnuljazari raximahu llahu tacaala isaga oo saddexdaa xaraf caddaynaya halka ay ka soo baxaan ayaa waxa uu yidhi fa alifu ljawfi wa ukhtaaha wahi xuruufu maddin lilhawaa'i tantahi buu yidhi. alif waa xuruufta ka soo baxda bannaanka ah iyo intaa madhan ee u dhaxaysa hunguriga iyo carabka iyo labadiisa walaal oo u jeeda waawda iyo yaada. waa xuruufumad baa la yidhaahdaa. hawada ayuu warkooduna ku soo ururaa oo ku dhammaada. halkaa waxa aynu kaga soo baxnay mowdicii koowaad iyo gurigii koowaad ee xuruufta qaar ay ka soo baxayeen. magaciisa iyo faylka uu haystana waxaa la yidhaahdaa aljawf baa la yidhahdaa. inagu guryaheenna waynu wada naqaanaayo dee guriga numberna wuu leeyahy, magacna wuu leeyahy. saddexdaa xarfumadku faylka ay haystaan ee aynu ku hor qoraynaa waxaa la odhanayaa gurigooda waxaa la yidhaahdaa aljawfu. bannaanka hunguriga iyo u dhaxeeya carabka waa xuruufta dhex maraysa. sidaas darteed xuruufta kale waxay kaga duwanaan doonaan. kuwa hore waa muxaqaq baa la kuwa kale waa muxaqaq ee aynu sheegi doona yacni xarafku halkiisibuu qabsanaya, laakiin iyagu goob ballaadhan bay haystaan. muqadir baa la yidhaha. muqadir yacni isaga waxa weeye waa la isaga waxa weeye muxaqaq iyo muqadir. muqadirku waxa weeye marka xarafku halkii la doonayo waa kama dambaystii halkaasu ka go-aya aan la odhanay laakiin jiidaasuu jooga. goobtaa weynee waasaca ayuu dhex dabaalanayaa marka la yidhaahdo ayaa loodhanaya waa muqadir. laakiin marka halkaasuu ka soo baxaya meel gaara oo la cabiro kooban ayaa la odhanaya waa muxaqaq. markaa saddexdaa xaraf halkaa ay joogaan waxaa la odhanayaa waa meel nafisa. waana ta keenaysa markaa dadku inay fahmaan ay tahay iyo dhalinyarta qur-aanka baranaysa iyo culimada qur-aanku inay bartaan ay tahay. xarafkan muxuu la jiidjiidmayaa? mar baa lagu odhanayaa xarafkan in yaroo kooban jiid. waxaa lagu odhanaya matalan yaa ayuha aladiina yaa intaasaan jiiday. mar kale waxaa lagu odhanaya yaa ayuha aladiina waxoogaa baan jiiday. haddana intii hore ilaa 4 la odhan karo xarako. tii horena 2 la odhanaya. mararka qaarkood baa lagu odhanayaa kasii kordhi yaa ayuha aladiina 6 baan jiiday baa la odhanaya. 6 xarako intii laga dhaqdhaqaajin lahaa. sirta keenaysaa waxa ay noqonaysaa xarafkana wuxuu haystaa meel waasaca oo laga dhaqdhaqaajin karo, laga dheerayn karo ayuu haystaa. laga dhexdhexaad marka qaarkood laga dhigi karo, marka qaarkood laga soo koobi karo. sidaas darteed saddexdaa xaraf waa marka ay reeban yihiin. saddexdaa xaraf waxa baraarujin mudan. saddexdaa xaraf marka laga hadlayo waxa baraarujin mudan alif baynu ka hadalnay iyo waaw iyo yaa. mar kalea waxaynu ka warrami doonaa alif iyo waaw iyo yaa. markaas waa laga yaabaa qofku inuu isweydiiyo oo alif iyo waaw iyo yaa soo inagii faylkii iyo gurigii gelinay ahaa aljawf soota meel kale la geliyey. su-aasha runtii inaad aada usii fahantaan baa wanaagsan. markaaynu insha allahu halkaa dul maraynana waynu caddayn doonaa. laakiin sirtu waxa weeye alif oo dhan maaha kaynu iminka ka hadlaynaa. waaw oo dhanna maaha. yaa oo dhanna maaha. waxa weeye alif reeban oo fatxa ka horeeyo iyo waaw reeban oo dama ka horeeyo iyo ya reeban oo kasra ka horeeyo oo la isku yidhaahdo xuruufulmad. xuruufta
jiididda xuruufta la jiido markaa markay shuruuddaa leeyihiin bay joof noqonayaan laakiin ya matalan iska fadxaysan ya iskaba fadxaysan wow matalan fadxaysan alif iyadu fadxaysan oo hamsaba isu bedeshay baabkan marka laga had joofka maaha laakiin halka aynu sheegi doono oo carabka ah ayay inoogu iman doontaa taasina waa baraarujin aan runtiisii qadimayo waxaynu imika haynaa shantii goobood ee waaweynaa iyo shantii guri ee waaweynaa hal guri ayaynu dhammaystirnay guriga aynu dhammaystirnay waxa weeye guriga la yidhaahdo shantii ka mida ee magaciisa la yidhaahdo aljawf la yidhaahdo jawf alxalqi waalfam waxaynu soo sheegnay mawdica weyn iyo gurigaa weyni wax lasii qaybqaybiyo kale inaanu lahayn qolkaa weyn un weeye makhrajkiisuna waa qolkaa weyn wuxuu ka dhigan yahay guri istoodha ama bakhaar weyn oo aan qolal kala lahayn dabadeedna la soo geliyey saddexdan xaraf ee xuruufulmadka sidaas darteed waxaynu odhanaynaa mawdica iyo guriga joofku waa mid qolal kalena male waa qol qura xuruuftiisuna waa saddexdaa xaraf ee xuruufulmad loo yaqaano ee la jiido marka qur-aanka kariimka la akhriyayo guriga labaad iyo makhrajka labaad ama waxaan u jeedaa mawdica labaad haddaynu makhraj nidhaahdo waxaynu qaadanay sidaynu hore u sheegnay culimada yidhi almakhraj alcaam waana xagga eray bixinta uuni almakhraj alcaam iyo almawdic kutubta tajwiidka labadaba waad ku arkaysaa guriga kale ee imika aynu gudagelaynaa waxa weeye gurigii labaad ee shantii ka mid ah waa weynaa waxaa la yidhahdaa alxalq dhuunta waynu wada garanaynaa waa marka carabku soo dhammaado hunguriga halkiisa u xigta carabka ilaa halka dhuunta markaynu soconno ilaa halka xigta waxa weeye kalxamaha ama laabta intaa ayaa noqonaysa alxalq xalqiga waxa uu qaabkiisu u dhisan yahay sidii fooq oo kale ayuu u dhisay fooq yaroo kooban oo isdul saaran oo ah saddex isa saaran saddexdaa isa saaran 6 xaraf ayaa inoo gelaya 6daa xarafee inoo gelaya mid walba 2 ayaa gelaya 6 xaraf alimaam ibnuljazari raximahu llahu tacaala isaga oo ka hadlaya xalqiga iyo xuruuftiisa waxa uu yidhi huma liaqsa alxalqi hamzun haau huma liwaslihi facaynun xaau adnaahu haynun khaauhaa suu sii waday xalqiga oo dhuunta ah ama hunguriga ah waxaa ka soo baxa 6 xaraf 2 xaraf oo ka midi waxa ay ka soo baxaan hunguriga halka ugu dhow ee soo xigta xagga afka 2 kalena waxay ka soo baxaan bartanka hunguriga 2na waxay ka soo baxaan halka ugu fog ee hunguriga ee ugu shishaysa ee laabta ama kalxamaha xigta 2da ugu sokeeya waxa weeye alghaynu iyo alkhaau hayn iyo khaa 2da dhexe waxa weeye iyaguna cayn iyo xaa 2da ugu shisheeya waa hamzun iyo haa alhamz iyo alhaa waa 6daa xaraf 6daa xaraf oo ah xuruufta loo yaqaano xuruuf alxalq marka lagu weydiiyo ee lagu yidhahdo xuruuftan maxaa la yidhaahdaa waxaad kaga jawaabaysaa waa xuruuf alxalqi waa xuruufta hunguriga ka soo baxda culimada qaar tajwiidka markaynu dhiganayno culimada tajwiidku waxa ay u yaqaanaan xuruuf lidhaarna way u yaqaanaan xuruuf lidhaar xuruuf alxalqi xuruufta
la idhaariyo yani waxa weeye marka la akhriyayo sidooda unbaa loogu dhawaaqayaa cod kale oo lagu darayaa ma jirto marka idhaar la yidhaahdo marka xalqi la yidhaahdo waxaa la odhanayaa waa xuruufta ka soo baxda goobta hunguriga marka xuruufulxalqi saasaa loogu bixiyey waxa ugu sokeeya oo halkaa iminka aan gacanta ku hayo ee ugu sokaysa ee carabka soo xigta waxaa ka soo baxa labada xaraf ee loo yaqaano ghayn iyo khaa waxaan baraarujin lahaa marka koowaad macallimiintana aan ku baraarujin lahaa ardaydana aan ku baraarujin lahaa xarafkaa marka caruurta ama dadka qur-aanka bilaabaya ama luqada carabigaba bilaabaya marka loo bilaabayo waxaa loo akhriyaa oo dalkeena ku badan si qalada waxaa loo akhriyaa qoyn bay yidhahdaan qoyn bay yidhahdaan qoyn ma jiro waxa wax oo la yidhaa oo qur-aanka kariimka ah soo gashaaba ma jirtaba way soo gashaa inkastoo inaga qiradeynaynu akrinay riwaayatu xafs waxaan jeedaa qiraa'ada caasim aynu akrinay ee riwaayadda xafsana aynu kasii akrino meel qura un la akriyo bismi illaahi majriha wa mursaaha halkaa la akriyo qur-aanka laakiin riwaayaadka kale iyo qiraa'aadka kale way ku badantay qur-aanka way ku jirtaa aana way ku jirtaa iina way ku jirtaa uuna way ku jirtaa waynagi iminka qaala sheegaynay qiila waynu sheegnay yaquulu waynu sheegnay eena halkaasaynu ku sheegnay waxaan jecelahay insha allahu tacaala deriskan ku xiga inaynu halkaa kusii caddayno halkaa maanta haynoogu joogo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن